ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo isugu jira kuwa qaybta 12aad iyo ururka 15aad ee Commandoska Gorgor ayaa gacanta ku dhigay koox rag ah oo la xiriiriyay inay ku lug lahaayeen fal argagixiso oo 26 maalmood ka hor lagu dilay saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku safrayay wadada isku xirta Guriceel iyo Balanbal. howlgalkan oo ka dhacay tuulooyin ku teedsan jidkan dheer ayay ciidamadu ku qabteen ilaa 7 ruux oo muddo isku dayay inay ku dhuumaaleystaan aagaasi oo ay ciidamadu dhowr jeer ka fuliyeen howlgallo ujeedkoodu ahaa in cadaaladda lagu horkeeno kooxaha sida arxanka daran u laayay saraakiisha qaranka. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku howlgalaya xogo amni oo ay ka heleen dadka deegaanka iyo xiriirka telefoonada ee kooxdan ayaa raggan ka soo qabtay goobo kala duwan oo ay kaga dhuumarayeen laamaha amniga oo baadigoob ugu jiray tan iyo markii weerarkan uu dhacay 9kii bishii hore. qaar ka mid ah eedeysanayaasha ayaa ku safrayay gaadiid iyagoo isku dayay inay u baxsadaan meelo kale halka kuwa kale loogu tagay guryaha ay joogeen sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee hogaaminaya howlgaladan. kooxdan oo ku eedeysan dilka 6 sargaal oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wajahaya wajiga cadaaladda iyadoo kiiskan uu yahay mid dadka Soomaaliyeed iyo madaxda qarankuba si weyn isha uga hayaan maadaama dhacdadani ahayd mid lama filaan ah oo ka dhacday dhul amni ah oo aysan ka hor weerarkan ka dhici jirin dhacdooyin caynkan ah